horta suxufi ah qofkii bulshada la wadaagi lahaa markasta wixii soo kordha oo adiga laakiin de anigu hadda arrintan dadka gobolka Banaadir anaga aan matalo oo aan mas'uuliyad u hayno ka kaceen oo dadka ku shiday waa in ninka odaga ah oo garab siiyay cadowgii Soomaaliyeed cadowgii Islaamka cadowgii gobolka Banaadir ee Al-Shabaab iyo hogaamiyahooda oo basi balaariyo oo gaarsiiyay to the level oo madaxweyne iyo dawlad ku tilmaamo arrinkaas weeye marka innagana xafiiska waxaan u joognaa waa bulshada waa dadka gobolka Banaadir haddii dadkii ay noo yimaadeen oo cabashadaas ay soo gudbiyeenna annaga tallaabada keliya aan qaadi karno waa inaan dadka rabitaankooda ku shaqeyno oo aan ninkaas u yeerno oo aan su'aal weydiino oo aan la xisaabtano waayahay hadalka boqorka markuu lahaa mudane gudoomiye waxa garab taagnaa wasiir ka tirsan xukuumadda maxaa haboonaa in markaa falcelin ah u muujiyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Carab oo markaa garab taagnaa boqorka markuu hadalka hadda aad sheegaysa u lahaa wasiirka arrintaas jawaabteeda isaga ka sugeynaa bulshada gobolka Banaadir baaqyo badan oo kala duwan iyo arrintaas uga dirtay kulleeba u maleemayo inuu arrintaas ka aamusnaan doono oo ku asbanaan doonaa aragtidayda inuu dadka la hadlo oo arrintaas ka qanciyo uma maleynayo in wasiirku uu burmadu ninka la yiraahdo oo la qabo arrintaas oo Cabdullaahi wasiirku waa nin dalkan joogay oo og dhibaatada nimankaas ummaday u gaarsiiyeen dhibaatada ay u gaarsiiyeen bahda oo sida gaarka muddo dheer uga tirsanaa oo odaga ugu ahayo waxbarashada ama deegaanka uu matalo ruuxeeda runtii nasiib darro weyn ayay ahayd wasiirka oo garab jooga inuu arrintaas yiraahdo sidoo kale waxaa garab joogay xeer ilaaliyihii hore dalka oo arrimahaas oo kala ninkii dacwooyinka ku soo ugu jiray ahaa oo hadda aanu isagu xafiiska fadhin wasiirku ma garan karo inuu khudbada uga dambeeyay in kale laakiin sida hadda aan aragnay wali arrintaas kama soo jawaabin waxaan wasiirka ka codsanaynaa inuu dadka gobolka Banaadir la hadlo oo arrintaas maartay sida ay la tahay iyo anigu sida horeba u sheegay oo maleynay inuu la qabay inuu bulshadiisa iyo dadkiisa oo wasiirka u yahay oo ka qanciyo si gaar ah wasaaradda waxbarashada nimankan cadowga ee Al-Shabaab hadda waxaa weli sii qoyan dhiigii ay u geysteen iskuulkii hadda la weeraray waxaa ka sii horeeyo aad garan kartaan in hadda ka hor wasaaradda waxbarashada la weeraray waxaad garan kartaan in harkaha iyo saamaha la weeraray waxaad garan kartaan macallimiin la laayay marka si gaar ah oo aniga aan aaminsanahay inuu dadka kale uga xanuun badan yahay yaa muxuu ahaa isaga ay weliba u taabanaysaa marka waxaan rajaynaynaa in wasiirku uu dadka la hadlo oo arrintaas ka jawaabo yaan maaragtay